Yo, it's okay. MHD. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida joogta, asxaabtayda Facebooka insha Allah taala. ilaahay ka sokow waxaan u mahadcelinayaa dhammaan qof walba oo walaalkay ama walaashaya oo Facebook igula jira aan wax badan kala faa'iidno insha Allah taala. أحد وعنو وناكسن ملك استوجوكتا أنباب waxaan doonayaa maanta saan idin soo sheegay insha Allah taala haduu Ilaahay awoodina siiyo inaan ka hadalno cuqdada waxa loo yaqaan al-uqda. cuqdadu waa xanuun rabbaani ah oo bini aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuro ama isagu iska dhaadhiciyo. haddaan in ridinta taabto inta khadka telefoonka aan inanta igala qayb qaadanaysa barnaamijka idin soo deyn waxa weeyaan cuqdadu waxa weeyaan waa wuxuu bini aadamku isagu iska dhaadhiciyo ama fikradu isagu isu keeno oo salbiya oo ijaabi ahayn oo ah negative oo maskaxdiisa ka dhaadhiciyo waxaan ay qof caynkaas qofkaasan ka liita qofkan uu yasaya qofkan waa caynkan qofkan waa caynkan anigu caynkan marka qofku wuxuu ku noqonaysaa cuqda rabbaaniya. cuqdadaas waxyaabaha keenana insha Allah taala waxaan weydiin doonaa Safiya. cuqdadu waxa weeyaan qofku haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo abuuray iyo kayaanku siiyay iyo garashadu siiyay una ku qanacsanay qofkaas wuxuu noqonayaa qof mucaqada. qof مثلا meel ka wada shaqeynaysan waxaad arkaysaa qofkii wuxuu diidan yahay qofka kartidiisii ama garashadiisii ama aqoontiisii inay dhaafto isaga marka qofka cuqdad buu ka qaadaya wuxuu soo galay inuu qofkii yaso ama qofkii ka xumaado ama qofka ka jajabiyo powerku Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay. bini aadamkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu abuuro qof walba siba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray inako wada dhana waxaan awlaad 9 bilood baan ku wada dhalanay laakiin iska dhaadhiciska iyo bii'adaha la soo maro ba qof walba kala ka duwantiisa kale. marka waxa dhici karta cuqdada marka qofku cuqdad isku abuurayo rabbaaniya waxa weeyaan cuqdadu adigii oo Ilaahay ku abuuraad ogtay ama fool xumo ama gaabno ama dheerno ama qof dheer noqo ama qof il shalaga riday noqo ama qof dhagala noqo Ilaahay sidoo ku abuuray horta subhanahu wa ta'ala way noqotaa wax adigu aad Ilaahay horta aaminsan tahay. you have to believe Allah subhanahu wa ta'ala in haddaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aaminsaneyn waxaad isku abuuraysaa cuqdad rabbaaniya. عقدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبر لما أنت بدين سلام يا ولا ليا. مركا عقدة قف إستجا إسكو أبورة بيأدو كلا صوب بحنا كو أبورة أو كوين هذا مركا سيدي مركا قف كوين هذا أما كو شقات تجا أما عقدة كمجتمع كو صالح جلا. مركا إن شاء الله تعالى إذن كو دم بدين سلام يا مركا هلا أدبر بدين سلام يا speaking Somali language. مركا إن شاء الله رب العالمين ما أنتوا وحنكهر لي العقدة. ما هي العقدة؟ تعريف العقدة عقدتي فara badan halkan qof kale soo garaacay halkan khadka qofka ku jira labadii ku jira hadaba ku jira walaalaado magacaaga ii sheegin inaan ba ka horeysay okay ha waa lagu jira kaltuuna ku jira khadka walaalo khayr Allah ku siiyay ayo walaal waxa ku jirta halkan Safiya Maxamed oo ah gabadh u shaqeysa NHS-ka dhanka ay Milton in UK insha Allah taala waa dhalinyarada wax ku barta halkan jaamacada ka baxay ee u shaqeeya NHS-ka xaafada ama gobolka leerada Milton. Safiya soo dhaw haba macaan oo salaamay marka hore. Thanks for having me. وانكسور دوينها برمعال مكورم سو كيف يعني الحمد لله وسلامت هذا الحمد لله رب العالمين شقada هذه كورني عاصماتك ان شاء الله تعالى bulshada وهيسي عالم كودن Soomaaliya cadaanba الحمد لله ابو اوكي هابو maanta waxaanu ka hadlaynaa Safiya maadaama tahay qof dhakhtarnimo ku soo jiray kale waxaana maskaxun bay hadana si qaabisha wax xagga maskaxda ma bedelaynaa sheekadana cuqdada saad u aragtaa habo what's the meaning of cuqdad qofka cuqdada qaba maxaad ku tilmaami kartaa adigu Safiya ahaan هذا قفت أنيقو قفك قفت قبوا حنوم لين يبقى قف faithful أو بقية أو دوني إنه واحد سمايو لكن كبقية إنه واحد سمايو. أوكي. هيا أوكي. أوكي. أوكاد محاضر صفيها أبو. قف بقاش كل حاجة. You can't speak English if you can't speak Somali. I can't translate it. I know Somali is hard for you. I'm going Somali kuga adagaya Safiya. Okay, what do you think happen معايا قفك عقدة قبة kind of عقدة يعني someone عقدة what you own experience how you can explain to us عقدة وهو حويان حبيرو وإن
negative thoughts ay qofka if you're negative, if you've got negative thoughts inside you, okay is a negative horta taa waan ogaan sax it could be adigu waxaad isu sheegtay oo maskaxdaada ku dhex jiraan iyo calooshaada, or it could be environment-kaad kusoo dhex jirtay ama ku noolayd kusoo kortay ama familigaad ku dhex jirtay ayay uqdad kugu beeri karaan. okay marka uqdada anigu waxaan u qaadanaya negative thoughts, negativities qof baqaya, qof yani mar walba hoos isku dhigaya. okay hoos isu dhigaya marka idin sheega Safiya waxay u jeedaa because halkan ay ku baratay waxay ku jaamacad kaga baxday marka Soomaaliga is very hard for her uqdada waxay u haysata Safiya u sharaxday waxay qofka uqdada qaba waxa weyn waa qof markasta isagu wax walba u qaadanaya negative waxaan haysanaa wax la yiraahdo positive iyo negative yani xaga ijaabiya oo xaga salbiya marka qofkaas waxa qof wax walba isugu si kale u qaadanaya hadii wax lagu soo qoro meel isugu wuxuu qaadanaya maxay tahay negative hadii wax laga sheekeeyo isaga bay isu qaadanaya yani waa qof uqdadun ku jira rabaaniya. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ahbaabi. marka qofkaas waa qof noloshiisa oo dhanba isku abuuray xanuun la yiraahdo al-uqda marka uqdadu waxay leedahay darajaad bilaad marka Safiya ku jira adigu khadka waxaan siinay inta kale hello salaamu calaykum kaltuun. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمان. aad baan kugu riyaaqay marka hore kaltuun waa lamaanaha barnaamijka doorka haweenkii waxtarka bulshada qaybta Facebook insha Allah taala iyaduna waa gabar jaamiceed oo ku dhigatay dawladda Suudaan wax ku baratay London way joogtaa halkan way ka shaqeysaa hay kaltuun soo dhaw walaalo aba macaan walaad badii wal salaam ya dhammaantiin موضوعك موضوع مهم جدا عقدته أمانة كان ليس مانتها لكن أمانة أنا وحن دري عقدته قفك إنه هرت مركو جور رسالة هرت وكيم هذا basically قفك يسوون إلهي إيمانك سكير إيمانك كوير هيه وقف لأنه قف عقدته ذا وقف مجلس كتوم وقلة وقف مسامحة أقونين هي قف هي وقف قضب يعني قف كان روح وقعطوا كلام يسقف قف كان هذا اللي كيري كم رجودي يعني أنا وقال موضوع روح رياضي وكلام واحد يكرت قف كل كلمة كيري هذا كفت أنا وضو قانن كرتا حمانا وضو قانن كرتا وارون أبو هذا أنا كرت ساء ميتين وارون عقد الدقبة وحي كجد جساء وقف كسوتي وحوله وراني أو حاسم بوتيبي marka qofka waxa uu maleeyaa qofku markuu iimaanka ka yaraado caqdada ka mid tahay iyo qofku bulsho ku soo koro bulsho environment xuno oo dadku iswada cunayaan oo kale oo dadku xaqad badan hayaan oo kale environment-ku waa muhiim jiddan waliba waalidka ku xiran tahay waalidku hadda waxa jira dad uu yani marka ka hadlayo ilmihiisa xitaa waxa fiican inaanu ag fadhiisan ba ilmihiisa markuu dadka asxaabta soo sheekaneen ilmuhu ag fadhiisto hooyadii ma fiicna waxyaalaha qaarkood ilmaha yar uu maqlayo uu ku koraya waan gartaa wuxuu haysanaya wixii inuu wax normal yahay waxa dhici karta maanta inaguna soo sheekaysanayno waxyaalo badan aan ka sheekaysanayna aadam iyo xanaanba u fahminba oo laakiin waa haystaan waxaan sameynayna saxda dadna waa qaldanay dad waaweyn baan nahay oo waad xaman kartaa qof wax ka sheegi kartaa ilmi yaraaba ku soo koraya waxaas nadariyadaas oo kale fikradaas ku soo koraya marka soo oranaya de wixii oo kale ma garanaysa amali horta environment-iga ku xeeran ba awal xadi ka bilaabmata qofku iimaankiisa yar qofku xasuudan oo ka bilaabmata qofku xaasideen qofku cugdad qabana qof xaasida لأنه قفك ومؤجلا يعني وحياله بدن حتى عقدة وحويان إن أنت قفك سامحين هذا اللي كقول له هذا كله عقدة وحويان يعني إن هذا وعذر بانو أركا أما أنا قفك أدو يعني اسكوس ما يسوي حرية يا ستان أدو أسيس نفط على حتى دي استد بأذى دي استد نلش هذا استد وقفك يعني إلهي سبحانه وتعالى وحسيه ميل قارسيه سادوه كل ضيان كل ويدين ما قاري كلتد أدوه هذا واي قفك أسوحه وهاي سنة why he have this محوحه وهايستا محوحه وبرت ليش تعلم ليش صار كذا ليش كذا واي question mark فربضن بقفك أسوق صور الرئيسة مركا عقلي جيسي راي قابنا إلهي سبحانه وتعالى عقلي وحنوسي إن كفكرنا وحيوان كي إنك ونكلا عقلي في عنيسية marka qofka isagu wuxuu doqon weyn qof korta cugdada qaba oo qof doqon waay shakhsiyadiisa ilaahay siibuu yasay wuxuu doonayaa qof ilaahay wax baray ama ilaahay subhanahu wa ta'ala mucjiz rabbaani ku abuuray inuu qofkaas noqdo abwaan actor maxay toy qoraa maxay toy musician wariye whatever ilaahay haybada ilaahay baa bixiya wuxuu iska dhigayaa qofkii haduuna gaareen inuu marka cugdad isku abuuro waxa jirta xidaasaad sheegtay ee Safiina sheegtay bii'adan ku noolnahay ama tarbiyada guriga waxa jira caruuro marka yani waalid ku qayliyo ama iskuul la soo galin ama danyar ha dhibaato mala bini'aadamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala faqiir iyo qani buu ka dhigay Ilaahay baa arsaaqada badi Ilaahay baa arsaaqada qaybiya dadkana ku abuura kuna beera kuna koriya oo Ilaahay baa taas subhanahu wa ta'ala qacantiisa ku haya
waxa weeyaan qofkii isna halkii uuna looga baahnaa مثلا qof jaamacad ka soo baxay iyo qof aana jaamacad ka soo bixin hadday meel ka wada shaqeeyaan kii aana jaamacadda ka soo bixin ama aqoontii uu wuxuu ka shaqeyn u lahayn cuqdad buu ku beermaya waayo qof ka powerful oo ka power weyn oo isagu wax fahmaya wax garanaya wax qoraya wax aqrinaya noloshiisu tahay focuskiisu yahay wax yani ka hadal waxyaaba positive oo negative oo dhan ka maqan yahay buu la imanaya markuu la imaado qofkii wuxuu noqonayaa qof mucaaqid cuqdad baa ku dhacaysa aad bay cuqdad yani wuxuu oranaya waayo qofkan anigu aan uga hooseeya maxaan uga sarreyn waayo marka wuxuu isku dayayaa qofkii cuqdada qabay inuu qofkii wax bartay ama ka fiicna ama ka wanaagsana hadduu farxo farxadiisa ka jabiyo hadduu wax soo saaro wax barto iyo barashadiisa ka xanaaqo hadduu ilaahay ku arsaaqo wax fiican arsaaqadiisa yiraahdo muxuu ilaahay u siiyay aniga ii siin waaye marka qofka waxa ku beermaysa cuqda nafsiya safiya ma ku jirta khadka safiya waxyaabaha keena cuqdada maxaad ugu horeysiin lahayd haddaan bal adiga maskaxdaada aad ka ciyaartid maadaama aad tahay qof weliba dhakhtarnimada kusoo barbaaray oo xanuuno fara badan lagula yimaado different dad badan ku yimaadaan for different issue fara badan aad xillaysid hadday noqoto incall hadday noqoto live lagu arko haddii lagu dhakhtarka lagu yimaado maxaad adigu qofka cuqdada qaba muxuu ka halkuu ka keena cuqdada maxaa ugu wacan yani waxyaabaha ugu wacan maxay yihiin anigu horta the biggest thing I think habaryaro waa confidence less confidence haddaanad haysan you're gonna have it because waxaan kaaga sheekeeyo one thing naag baa jirtaa isla shaqeyno manajaradeeda weeyaan okay she's been working here for malaha maybe 25 years malaha okay 25 wala shaqeynaysa year okay go ahead marka 25 years dhakhtarkani manager weeyaan yani manager-nima waxaa lagu siiyey because she was there for a long time waxaa jirta laba types of managers waxaa jirta manager that markaad meel joogtid long time adig you go up and up and up and up the ladder until you become a manager iyo waxaa jirta qof soo gelaya because wixii bay dhigteen wixii bay barteen. They've got the knowledge. Okay. Let me explain this two issue for the my community, because my majority community is Somalian people. I'm sorry. No, it's alright. You can speak as much as you can any language you like. أنا ما نكون فاهمة لكن dadka aan أشرح إن شاء الله بإذن الكريم. waxaad ugu tiri waxaad wada shaqeyn qof shaqada aad wada shaqadii adigu waxaad uga soo baxday jaamacad Soomaa waa issue hadda ka hadlayay waxaad imika baratay ama takhasuskan imika adigu aad ka shaqeynayso waa takhasus adigu aad ku takhasusay laakiin adigu aad xirfadiisu haysatay Soomaa safiya marka inaan waxa gabadh baa idin shaqadii soo qaad marka shaqadii waxa lagu siiyay waa tad imika Soomaaliya oo dhan ka taaganba يعني عالم كود حتى عرب يعني everywhere وحيابها حمانته إن هايستين مكان قفك كوسينين وحبرشديسي يا أقونتيسي حرفديسي لو كوسينة جرب يا قبيل أوكي مركا قبل ده سكم شقادة مرسوا هذا كشيء ده وحلو كوسية because جرب يا long time ago كيف حوي long time بيدقتي and it was completely different to إميكا صدق سنوات كهر أيه واحد دقتي هبريرو سنوات إميكا نوع completely different واحد دقتي يدو certificate إميكا نوع أصلا وين أصلا okay وي دقتي لكن manager لماذا واحد دقتي because she was there for a long time okay وأنا فاهمنا مركا يدو حي هراء ودقتي مركا وحي هراء ودقتي وحلو كوسية صح واجرا صومالي بدنا عين كاو دقمنا واجرا لكن إمك واحد براتي صدق سنة كوريا واحد إمك completely different وحي ولا بدل كلا وصل امتحان قاعد يقول له بدل ما أنا كصح ولا كسو كله every year understand exactly okay go ahead أيه then marka and waxa weeyaan aan kaaga sheekay oo little bit of history iyo waxa weeyaan min baa qabi jiray the reason I'm telling you this is because how uqsada markuu sida uu galay iyadu aan u maleynayo anigu okay min baa qabi jiray haye لك يا لا أيه ودشة ما شاء الله. Hey. And he was دوني إنهم بدوني all the time. That this is why she kept having وعدان لبضوضة. Okay. And لكن دوني دوني and إنه ودشة. Okay. شو هذا baby girl. Okay. So all this time لحد عيال واحد يقول دشة سرعتي. Okay. Wait. عيال ما كده دشة تطلعين بالنقطة مركا and ninkan naakale buu miisgareeyay oo Pakistaaniyeed gabar kale caruur kale u dhashaa okay gabar kale buu gursaday inan bay u dhashay haye baa anaga shaqeynaa ku jirtay haye way naagta kale uu miisgareeyay Pakistaaniyeed inan bay u dhashay haye anyway
Nasa, she came to find out, my mom, Nasa, she came to find out that ninka inuu Nasa la qabo iyaal 3 years markii Nasa waan garta marka uqdad bay yeelatay because obviously she wasn't ilaahay muusin ilan waxay leedahay ninkan way ka tagin because anigu ma dhalin ilan la bixiyay ninkan dhalay صح marka waxa ku dhacayna عقدة kansar ba ku dhacay way dhimatay هي maxaa ku dhacay kansar ba ku dhacay kansar baa ku dhacay tii hore uu qabay way dhimatay markaa may tan kale tii dambe ilmaha inta u dhashaa dhimato kansar u dhimatay okay then هي inantii buu soo kaxay gurigii keenay naagta ku keenay هي marka duli buu ku ahaa guriga Bully. he did what he wanted wuxuu doonayuu samayn jiray iyaduna may hadri karin because way sacleed obviously she's got 6 kids by him shaqo fiican buu haysan jiray big box buu ahaa meel so she stayed with him وايه markaas ayuu uqdada gashay markay shaqada timaado habar yaro waxay iska dhigaysaa big boss dadkii bay buligaraynaysaa because gurigiiba lagu buligaraynaya gurigeedii هاي marka haddaad wax weydiisa every week you have a meeting Zainab, don't call me please. You're in my Facebook. Yeah, Facebook at Google Church. Zainab, don't call me please. You have to use common sense. Hey, see that? Then? meeting baad samaysanaysaan waxaas baa jabay mashiinkiis baa makaan baa jabay waxaan baa la samaynayaa meeshii baa sidana wixii baa laga sheekeynaya wiigii dabesi shaqadii ah Hey. iyadu haddaad tiraahda koobkaas waa cadaan wixii sodanaysa oo haddaba koobkii waa cadaan wixii sodanaysa maya cadaan ma aha Waa madow. cadaan ma aha safiyay cadaan ma aha aniga garanaya koobkan waa cadaan marka waxay ku soo kortay cuqdad. That means she's in cuqdad. Oh, video chat. kortay because waa bully waa environmentkii ku jirta guriga Environment-ka ku jirta guriga dee shaqadina kula dul dhacday. ayay shaqadii so waxay noqonay cuqdad baa gashay Cuqdad, yes. gurigii boos kama aha shaqadii waa inay noqota boos waa inay iyadu wax walba garanayso waa inay wax walba marka halkaas kala timi cuqdada halkaas cuqdad ka soo raacday qofka guriga markuu ku haysto pressure fara badan ama cuqdad fara badan ama xitaa yani wuxuuna loo awoodin waalidkii aabiyiin u awoodi kali waayey dad uu ilaahay u awooday subxaana watacaala la kulmaan qofkii markaa cuqdad baa ku abeermaysa taasna kasaan kaga baxaynaa Safiya hold the line please 1 second please I will speak to Kaltuun insha Allah Kaltuun هي كرتون صاد واركتها inantii waxaan ka hadlayo dhan way ka hadashay amaanay ما شاء الله تدا ويسفهميسنا dad waxa tin isku wixii isla wada jaan qaadi kala mo isku maskax environment صح البيئة environment waa the first one weya waa ka ugu horeeya ilmaha environment xitaa amaanay waxa dhici karta inaad ilmaha adu kala leexatid for example kale adigoo inankaaga soo dhawaysan inantaadana fogeynaysid taasna way keentaa cuqdada okay hadda mujtamaca Soomaaliyeed baan ka hadlaynaa inuu hadaba taas waa tii cuqdadii baan nimka macnaheedii soo bandhignay waxyaabaha laga qaadaa ugu weynaan waxa weeyaan baqashada qofkii oo ka baqayo qofkaas inuu ka baawar weynaado inuu ka horeeyo inuu ka hadal fiicnaado inuu ka karti bato inuu ka maxay noqdo ilaa aakhirihii ka kale cuqdad buu isticmaalaya marka uu cuqdad buu qaaday wuxuu isticmaalay waxyaabahan u sheegnay inuu qofkii kale ku sameeyo bully Soomaa hadduu xitaa meel kaga soo horeeyay hadduu xitaa kaga damay laga daba keenay waa inuu isticmaalo inuu isugu baawar sheegto yani mesela meel baa qofka wada shaqaysaan isaga shaqadiisu mesela wuxuu ahaan jiray qofka shaha keena qof walba type bully qof waa presenter TV buu ka hadlaya qof waa cameraman qof waa maxay tahay editing buu sameynaya qof walba wixiisa uu ku taq ka warankii editing ka sameynaya kamarada sameynaya waxyaaba isugu duubay media bartay hadduu kii shaha karin ee ku yiraahdo this is not good dad badan baa shaqaynka kaga tagay bulshooyin badan baa shaqo kaga tagay ama xafiis ha noqoto ama maxay tahay xawaalad ha noqoto ama maxay dawladda ka shaqeeyo adigu meel kasta somehow bullying because isaga professionalkiisi ma ahayn waxa ka shaqeeyo laakiin wuxuu ku yimi garab iyo si dictatorial المهم waxyaabaha kale keena albaqasho waan ka sheegnay Kaltuuna waxaad adu ka dhawaashay adiga iyo Safiya waxa isku noqoteen isku maskaxina wixii sax noqdaan soo maaha environment-iga ay ka bilaabmatay amaanay oo hooyada caruurta iyo kala leexan okay waxa imika xitaa Soomaalida dhexdeeda ku kala jira cuqdad dad badan baa cuqdad wada qaato oo iska dhaadhiciyay anoo siyaasad jecleen aan ka hadlo anoo jecleen mabda anigu aan barnaamijkayga u sameeyay arrimaha bulshada oo siyaasadda marna ku soo lug dhicin layguna sirin laakiin haddana qalindaarisku mar walba iska imaado laygu soo xado laakiin haddana aan u jawaabin ma laga yaabo xataa siyaasadeena innaka as Somali people ama dad intaas oo dhan wada jooga dadka dhexdeena Soomaaliha inagu dhex jira ama dad inaga mid inay xitaa cuqdad ku noolin iska dhaadhicin cuqdad ku noolin madna waxa la maxaa la 5.55 jira la yiraahdaa kan waa landera la yiraahdaa kan waa langaba la yiraahdaa so many things
waa environmentiga amaadan ku sheegay ها قفك كل حوين هذا سماها أوكي environment كاسر soo dhan amaada environmentiga keenta environment كأنا جو يب وحن شيء مش أوكي عقدة نفسية waddankanaad joogtaa iyo ingiriis baad joogtaa mad maqashay waa isku cadaabayo cuqdad baa isku qaadayo caddaanka dhexdooda way jirtaa sharciga lowgood wuxuu dhigay ka madowga iyo ka caddaanka isku shaqo qaban karaan thank you very much isku baasaboor qaadan karaan yes isku xuquuq noqon karaan soo maaha okay alright inaka waxaas dhan wada og haddaba oo cuqdadii ka sheekaynay inkastoo qofka horta cuqdada qaba ayuu doqon ba yahay buu nacsi baan wanseeda u qaata waayo dee qof ilaahay abuuray inuu cuqdad isku abuura maahaba come on haddaad ilaalay isheedan ku faanaya haddaan maskaxdan ku faanaya haddii aan indhahaygu saa usii haddaan curiya whatever you are ama ilaahay subxaana watacaala kuu abuuray you have to be proud of it maaha inaad noqotid qofkii ka naaqusan maxaa kuu kalifaya leena quwat iimaankaaga ilaahay subxaana watacaala ku siiyey baa liitaa laakiin haddaad tahdo maanta amaale anu arada amaalkiisa maanta I will do this maanta waxaasaan samaynaya maanta kaas you have to try your best to be powerful in your life maaha inaad noqoto qof lesson of that kind of person because inakoo dhan baa awlaad tisca ku wada dhalanay marka الواحد لازم ما يكون إنسان معقد وخايف من الحياة ليش maxaa keenay waa la yasayaa oo cayn kanaan noqonay oo cayn kanaan dadku waa adduun dhan baa markaba lagaga dhacay how many years baa duni kasoo wareegta Soomaali baa baaday ma inaad adigu maanta isistid baa mise waa inaad adigu naftaada la jaan qaado dadkii isku dhex dartid haddaad dadkii iska soo codid oo taadu cuqdad baan qabaa oo cuqdadii baa igu weynaatay oo 20 sano wax dhacay baan weli wadaa de waxaad qof markaa mucaaqida life-kaagina waxaad ku dhamaysatay mucaaqid baad ku dhamaysatay nolosha saas kugu dhaaftay maalin kasta aad noqolaataana waxbaa kaa dhacay wax kuu koraya ma jirto xaaraan bay ka tan wax kuu koraan horumarna ma gaadhaysid wuxuu ilaahay laakiin one thing baan sheegaya ina markuu markaad qof weyn tahay yani wanaagsan qof weyn I mean qof from I can say even 20 years onwards we're half way. Exactly, we're mature person. Yes, it's not teenage. ما half teenage. Yeah. Think for themselves. شغل كوسا هبل كرتون هذا شغل كوسا هذا الشيء. If you in call, let me know please. يا هبل. هاي. هذا شغل كوسا you free. You have to go. يا بريء no. أديكو دول هي فرصة كذا بقصد أسرة بتضحك لسمين كرا. صح. hooyada amba ayayda amba aabaha amba walaalaha amba environment kada ku dhex jirtid hadday kugu yidhaahd waad foolxun tahay aadan madoobe weeyaan sidan weeyaan kacse kii weeyaan timahaagan aad adag wax yani ukdasa ku gelaysaa because qof yar baa tahay waxaad sameynaysaa waxaad arkaysaa hablo badan oo isaseeya because waxa lagu caayaya kalarkoogii okay ها color ka lagu caaya dad lagu caaya culture ka dad lagu caaya jira ana ku sheegay habre marka yara wixii big tabin hadana walaalahayna afko processes ma sha Allah afarteed walaalo aad bay u doodoobanyihiin aniguna iska tabi bana ma sha Allah صح marka anigo 11 years old anigo walaalo oo maybe 6 years ago ayaan asfadnay ayayna way ma asfadiday waxay ku tiriyay siyay balisaag adigu boodahaaga aag 11 years baan ahay habreero 11 years old boodahaaga ay ku tahay adigu waxa tahay 2 times for 6 years ka weyn ba ka weyn from then on until the ones ka taray ha adoo ka yar baa lagu tii ka weynad ba ka dhuuban sidaas hay eeg cuqdad baa ka joojiyay habreero because cuqdad baa kugu dhacday soo maaha cuqdad bay ku dhacday of course marka lagu yiraahdo maanta oo dhan waad ka buurantay qofka kale waad ka fool xun tahay oo qofkina isku walaalatiin isku xaafad ka soo hooyo wada dhashay aab isku calool you get shock waxa ku dhacay cuqdad maalintaasi I stopped eating from then on imika ka cuqdad bay ku dhacday laakiin inta waan sheegay no like Sophia you don't have to be that weak person enjoy your life when you're 11 years old habrero you don't know better qofkaad waxaan kugu yidhaahdo wixii baad qaadanaysaa ood rumaysanaysaa oo markaa wixii environmentkaaga hooyada iyo aabaha iyo waa inay ku yidhaahdaan
you're beautiful قفي عم بعتهاي وحول بوب قبل كرتا وحول بوب يعني positive وين كوشة وقلبك الغول لسا سماها وقلبك الغول لسا قفك كما فعنا أصلا ممكن تجد سمين وطمين كستاش وارو إذا سمين دائما أبي قفك تلمس السمين يقفك كوشة أكيد وحاتهاي motivated you capable absolutely I know because Safia dadku hada shantaada habar farood imika isma wada leekaan way kala gaagaamiyo way kala dheeri way kala qurbaday ma qof walba inaad tahay qofkii kala dhan kii baa noqonaya aniga maanta amaalkaysa aanahay qof aniga amaalkayso kala noqon kala ma jiro ilaahay anu isiye powerkaygan iyo hadalkaygan iyo xikmadan iyo barasho it's me you can be something else wax kala noqon kartaa laakiin amaal baa noqonaya you can be si walba dadka isku daydid ma noqon kaltid this is me and this is you anigu Safia maanta ma noqon karo because this is Safia kaltuun ma noqon karo imika dadka ku soo qori halkaas oo kale magaciisa ma noqon karo inta ma noqon karo Yasmin I can't be I have to be what I am and I have to يعني accept waxaan ugu haynaan ogaado weeyaan yeah ku yeesha confidence ku yeesha kalsooni ku qaata xorriyad ku qaata islaadhiya anigu waxaan qof Ilaahay saa ii abuuray waxaasaan jeclaaday inaan ka hadlo waxaasaan bartay laakiin waan ku qallidayaa waxaan ka noqonayaa cuqdad baa igu abuurmaysa why Amal she get this why Kaltun she get this why Fatima she get this why Mohammed he get this why aad wixii oo dhan markasta baad noqotid wax positive kaagu life kaagu noqdo all positive you can be you ma noqon kartid laakiin wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adiga ku baray oo ku siiyay xariif aad ku noqon kartaa kuguma gaari karo ha ma ina kula noqdo challenge aan saa suuka kula tartamo inaku Soomaali baana we always do that kind of things waxaan ku jirnaa tartan baan ku jirnaa kii maanta soo fadhiista barnaamij soo saara mid kale ku dayno isla kiyo kale iska dhigay he can be ma noqon karo waxaan waa talent Ilaahay subxaanahu wa ta'ala bini aadamka u abuuray uu siiyay qudrad maanta cameraman qof jaamacad uga soo baxay media oo professional media maxay too wax duubaya oo producer cameraman everything kii koobka shaaha karinaya ama telefoonada qabanaya tabarucaadka he can be cameraman he can be professional as qofka kale ahaan jiray ma noqon karo waxa weeyaan qofkan wuxuu u bartay u daayo adigu xirfad kala keen management xafiis baad ka shaqeynaysaa waxa lagu dhibay adiga maxay tahay management ko dhan baa lagu dhibay saad qofka wax walba u maareysid ma baad soo baran how you gonna management all these people dadkan waa kala different type of education bay soo wada dhigtaan qof walba wax buu soo bartay wax buu ku takhasus laakiin marka wixii wax wada bartay oo meel la isugu wada keeno maxaad maanta baratay maxaan bartay meel baan ku wada shaqeynaa we should help each other inaan iswada caawino Soomaha laakiin aniga waxba garanayn ba adiga ku amraya adiga ku maamulaya adiga wax ku sheegaya waxna ma aqaano de kii bila damiirna uu la joogi kii damiirka lahaana uu ka carray Soomaha di aad marka waxyaabo shaqooyin fara badan oo fiican oo bulshada loo hayay ba waxa soo kale ku burbureen in professional person ba in positionkiisa aan hel taagaya marka bini aadamku qofna waa qof everywhere around the world we're not talking about UK we're talking everywhere around the world Soomaali hadday noqoto Puntland Arabta everywhere qof walba meeshiisa fiican lama keenay imisayna wada jaamacada ka baxay jiro maanta dariiqa taagan oo jaamacada siyaasadda ka baxay caalam maxay tahay dhakhtarnimo ka baxay oo wuxuu dila siinay qof kale oo waxba garan meeshiisa la taagay how many wasiirka cadaaladda waxaan maalin maqli jiray wasiir caynkaas oo qasaman billaah alcadiim fi xayaatu wasiir muu noqon عدالة مو أركين بلرجس لكن هو النقطة because واحد لو قصي وقرب بالقصي it is bullshit وحياة مجتمعين خربية وين كلتون صفيها برير أوكي صفية سؤال بنك ودينا قدام بس أبغى نكون مع سلامين دون كلتون أسكتوا هاد بني بشين محاولة قبل إيه كلا عقدة وحلاقي بشكرا learning something yourself educate yourself learning something أنا وحبرتد نفط هذا من حيث كنت أديكوا برتد أو يعني contact and difference between but your being ambitious تبريره right بس بعد تشوف إنكم كلام أنت وحنا كملا تكتير أنا كلاش خيو yeah بحيث هذا نوع فيها you know students كمركز هاي واحد فرنسا واحدة ما قبليو I can't do this it's too hard yeah ما تفهم كريو true you have to motivate the person حتى أنا بقول واحد قف وبا
habar qof alwasi hooyadii ka soo baxay isagoo wax walba garanayaan nobody وأنا شرنشر لا سوكر هبر شرنشر primary school secondary school جامعة university college والله صعدة ها نولوشي أبا business أبا you know life everybody معها إنه جامعة كلام معها it's not necessary إنه قفك كله كفي عن واحد عن فلوسي كمان واحد شكل خبرتي عن أو ما مريان they went and did it and it's beautiful. It makes so much money. Okay. You don't have to be all engineers or lawyers. ها it's not ما لكن تذكر واي اسكو قفلان لكن ما لكن wax kala sameyn kartaa kasi wanaagsan ma taqaan adigu sax ma ka habareedo waxa muhiima to take pride in what you do. Adab dulka so you have to take pride in what you're doing. صح waxaad adigu waa inaad pride qaadato oo tiraahdaa this is what I'm doing. I'm going to better myself. I'm going to do this. I'm going to do that. I'm going to make myself into a better person. True. Marka qofku marka waxa qofku leeyahay marka uu xisbaraa uqdada iska saara isagu iska dhiga educator isagu isu soo saara wax isbara bulshada isku soo dara Soomaaliya laakiin uu ka dhaxbaxay uqdada aad baan ku salaamay Safiya habar shaqadaadii baan ka xinimay ka soo in call aad wali noqonay xibda telefoon ku soo dhicin aad baan ku salaamay Safiya from Milton Keynes jazakallahu khair habar macaan insha Allah we're going to be next program mar kale jazakallahu khair aad baan ku salaamay Safiya aad baan ugu mahadcelinayaa Safiya Maxamed from Milton Keynes oo ka shaqeysa NHS-ka aad baan u salaamayaa haya kal toolabada isku soo noqonay maxaa xulxaada ka daba haya ما شاء الله that were very educated she's very dig qof wax ku bartay ana waa taqaana barnaamijyada dad wada yaqaana waa qof aan waxba aqoon maxaa laga faa'iideeyaa you have to add please waa laga faa'iido qofka wax laga faa'iideeyo waa la keenaa wuxuu qofkii bulshadana u gudbinaya wax solution ka jiro qofku inuu confident qaba satisfy waa inuu noqdo qofku waa inuu xitaa hobbigiisa amaal ogaada dadka jirta meesha hobbiga qofka waa inuu ogaataa hobbiga dadka hadii qof walba hobbigiisa uu ogaado waxyaalo badan baa hagaagi kara qofka for example oo kale yani wuxuu ku fiican yahay is ogaado kale aad baan salaamay walaalayaal satisfy confident qofku waa inuu wax bartaa kalsoonidiisu waa inuu aad u weynaataa qofka marka noqdada ka yaraadisa waxaan oran lahaa noqdada badanka waxay ka timaada environmentiga si walba hadda loo eego ama qofku ku soo abaabulay يا حرمان من أشياء كثيرة في بعض الناس يعني محرومين من أشياء كثيرة مركا أدو إلهي سبحانه وتعالى وحاد كتا يقف يعني وحي كم يعني حرمان أنت كسوكرين أبي هو يحكو براي أما هو يا أبو حصابرتي it's not to be عقدة إسجاليسيد this is not your this is the different وقف كلا نورش يسوي أنت this is your life أدو تادو أنا صاد أكرين لهيد أكبعين لهيد أقاد لهيد وسو قاد لهيد وكلا سميسا aad baan salaamay dhamaantiin Maryan Ahmed walaal dhamaantiin baan salaamay salaam madaxtooy insha Allah ta'ala kulliga Soomaaliya madax baan wadana haye madax ka sareysa ma jirto haye qofku inuu qorta satisfy noqdo amaal waa muhiim jiddan qofku noloshiisa horta ku qanco qofku waxa weeye qofku kan toona yarkii waxa dadka aan yani waxa idin sheegay bulshooy ka madaxda iyo ka faqiirka ka lacagta haysta ka indhaha haysta ka indhaha la ka dhagaha كوح والبوحان والحمد لله رب العالمين أرانا أما إليبا إنكم مركين وضع دمانو هالكي ويتقينا كلنا وين نروح في مكان قبر يرباك كقني جاي كفقير كابل ولا قلنا مهما كنت مهما صرت مهما عشت الواحد كل ما تكون في مكان يعني واحد قبر ولا قلنا لا مترا ما راح بانك الراحة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله وقلب سليم مركورت تاب بني آدم كعقدة قبا هيسكن عدعيو بني آدم كعقدة قبا تا هيسكن عدعيو عقدة إسكسارة ضد بدن باب الشدة كل عقدة إنسان عين كاسان وهانشرني عين كان أنا لا هانشري وبيبقى اللي يقول مريتشري كان اللي يقول مريتشري أنا يقبل كي والله يصيا أنا يقبل ووحكو يصيا مشرتو أدو هاي سياسن أدو عدكو يصيا مشرتو أدو هاي سياسن هدي بري هدوا بري واهرو تجي وطارق قبته ودمعته وقبته وحي هرت ما أنت أنا يقول عيد ما أنت ما حسوسان كلا إسقان سفر بني مكأده وانكسر نقضي ماشي أنت تجي وحي الله كل مدة منود جنا سيت again وخلاص وباص وتجي سمعها dadka marka caqdadaha ka buuxaan nooc walba ha noqoto bulshada anigu siyaasadu ma qaadi barnaamij laakiin waxa uu sheegay am telling you truth wax runta idin sheegaya iska saara caqdada qof walba caqdada iska saaro ilaahay qofku wuxuu qorana oo ama wixsiyana waan ku haneeyo walaalo ilaahay ku barakeeyo subhanahu wa ta'ala laakiin waan kugu caqdadoobaya man ha ku caqdadoob qofka walaalo خلي كل واحد يعيش في حياته إلهي قفك وحو سيانا وهنيه
سو إلهي أدينا سبحانه وتعالى كوجهنا يكوسيا ما كوجارسي لكن عقدت بالإسكو أموريا أو حنا هاني مركز ثقف معقدة أو نلاش يردون وحن كده يوان عبري بقى عين كاس بري وحبري وباص وحيابا باص وباص تجي خلاص والباص is pass is finish وحتى gone we have to be وح إمك future أنا كهذا ما في عن حاضر وحاضر we have to talk about the future we are not مرة بينا كهذا لنا باص ما باص is pass إن مساعد أنت قف مصون غنا يا ومايا very easy and very simple قف كل ساعة قاطع مسكح ديسة وحي تجوي تجين وحي دنتنا وين دنتين we are now we are future we are أولاد حاضر بارنا هاي محا إمك وست solution كان إمك محا إمك قصان كلنا what we can do now محا إمك صمين كلنا that's the هدف لكن هذين كهذا لباس حسوق وبري يعني وح عقدد رباني يقفك أبور ميسا قف كاسوح نقول يقف مجتمع عودن كعن باريسن وعقدد يسن هذا جبه هذا واحد بس عقدد جبه هذا اللي عقدد لفت جبه هذا بلا سميسته بري بقى أنك اللي سدا بري بقى عين كعدرس nothing وحسوا التجين waxaan noqotaa dad waaqiga jecel nolosha jecel future ka jecel life ka jecel xay qof xay noqo xay baa la noqdo xay lama noqdo qof meedo la jiidayo wax lagu shubayo wixina saa uga daadanayaan ha noqon wax lagu daadanayo marka you can't be like this marka xaaway wax badan baad gala qayb qaadato waxyaabaha soo kale maxaa kale ku tilmaami kartaa arrimaha soo kale wallahi amaale wixii aan sheegi lahay oo dhan wada qofteen hadalkii oo dhan wada tiraada waxaad oran lahaydeen سؤال العلس كلنا كسؤال اللي ما لكن قف بينه confident يا شو satisfy إنه نقضه وياه قف وبيتاسو طبعا قف confident يا شو satisfy نقضه نقضه قاضي عمله والله خلطونا كي يقولي ما هيستا تلفون يقولي درس هذا ما هيستا really I can't send you right now because I'm in live أي والله يقول صار قضية كان سنة كانت كمان إن شاء الله بإذن الكريم بنو سلامي كلتون وهبلها دلنيرة يكونوا حكوا برتة جامعة خردون بيكون لما يصير جامعة كجب بحضر علم النفس يدنا ما شاء الله تعالى هذا بعقدة النفسية ولا لا وإيشو is a big issue والله is a big issue believe me ولا هو big issue وحنون إمك إنك دلنيرة بدنا يكون وحيسو أو كل هراك حكي جاري وين ما كانوا حنقولات لنا قف والبعقدة ذي السم إيه الدمر إيه قبل إيه عد والبو نفسنا إيه عقدة ذي كسارة خليك واقعي إنسان واحد نقطة إيجابي أو واقعية حتى فيسبوك مركل وصو قرا واحد ضد فسر وحكله أو يكون عقدة كوجرت أمام موده إن يكلا جهد لايو هذا البات سوق رسا أما إري بات سوق رسا لقدو دهنا كبحو قف إسكو دبقية حقيقة ربي honest with you مركل وحلا جهد لايو ولا له هيسكو دبقين لك بوكس لقوا ما يقانو we don't know يكما أقانو سوق بني بروك هاد مانتش كذا سوق بشرنا بلعبنا إن شاء الله بإذن الكريم هي ده محل عاي كمرض ذي قبص ما أنت واحد دول أنت راي جريس وقبش هذا وابا إنك أنا بيحسوسية أنت أنا بيحسوس هي يا not in camera دالي المهم أنا واحد نسقش المواقع مركب واحد شيء هيسكر داعين إن تهاي قف معقدة هيسكر داعين إن تهاي قف لقى تربى دنيا هيسكر داعين إن تهاي قف كاكل إلى هاي أبو تكليته وإحنا نقوى ضد الأندمانتين بس نقول أن هاي أولاد 9 أولاد 9 مركل نقول عشان الحين نقفل بينه نفتي يسوي شيء وأنك يسوي شيء إنه هاي قف يسوي سكوف فلان ما قرأتي يا نود من كاميرا لكن راح في عمل قف كانوا يسكر إنه يقف جره ونفتي سآمنه قرشتي سآمنه أقونتي سآمنه عقلي سآمنه وحول بيساكو صعب سآمنه لكن هدو إرادة وين لا يصيا وحنا هانجري وحنا نقضي وحن وانا هانجري إسوا وح إسرائيلي ووح تجي مركا العقدة الإنسان لازم يحضر حياته وما يكون إنسان معقد ويفكر دائما في الحياة إنه معقد ليش تعقد حياتك ماكو داعي تعقد حياة الحياة حلوة وجميلة استمر فيها وخليك واقعي وتحب الواقع لكن إذا حسيت بنفسك إنك دائما إنسان معقد وتبي حياة تكون مستمرة وتعقد كل شيء تتعقد منه ما دعي كالطور إلهي قفك وحسية آد بنكوش على ولا سيني بعضنا إلهي كبركاي قفل بي إلهي وحسية كرتب وسية قرش وسية قوم بوسية وداية صداع لكن waxaan ka noqonayaa meel baad shaqo u tagaysaa shaqadka waxaad arkaysaa qaar marka ku arkaan bay banaxayaan ma qaday man Allah tana meesha bay naga qaadaysaa meesha bay shidaysaa meesha bay qabsan leesh tacaqad nafsak qof walba ilaahay arsaaqada wala abuuraa wala koriyaa wala socda laakiin waan ka noqonayaa mucaqad waa waxa Soomaalimaad ku baabaaday mucaqadka ku wada jira markaas khaliikum mucaqadiin
insha allah laakiin waxa fiican inaad adigu shakhsiyadaada ilaahay subxaana watacaala ku siiya maskaxna yar kugu jirta koobanee xoolihii adigii la kala saaray waad aragtay libaaxu keligii buu socdaa libaaxa la yidhahdaa waa keligi waa baaw isagaa keligii socda riyahan oo adaga kuwa istaba yaacayo saas u daba gurguraneen waa caqliga laakiin libaax waxa waa line waa king of maxaa animal wuxuu waa kibriya buu leeyahay kibriya isku kalsoon yahay you understand maaha inaad istaba wadid khurfaan oo dhan markaa waad aragtay riyahan hadda waa kusoo wada group wada socdaan wada baada wada leeyihin waxa loo qala loo cunana marka wal macaan waxa fiican bini aadamku inuu isagu naftiisa ku kalsoonaado yasitaanka iska daayo kalsooni buuxda naftiisan ilaahay subxaana watacaala siiyey uu kala ku kalsoonaado taas xayaan waxaan kale idiin sheegay asxaabtayda aan adduunka ugu jeclahay xagga waxaan gelaynaa iminkan dee alaabahaygii habla horta lacagta soo diray anigu waan shaqeeyaa 6 days a week even Sunday waan shaqeeyaa laakiin maanta off baan qaatay for some reason alaabaha markay iga dalbanaysaan walaalo anigu markaa iminka wax soo ii sheegtaan إنه قف شقيست بانه عرور بي يعني have a lot of responsibility ما أنا ما كسود رتوح هذا أنا نكون صادري هاي غفلان you have to wait for 2 weeks at least 10 days بس ويسه ما أنت الأفكار هاي بانه نكون صادري واحد إن شاء الله مركب لي إن ضربضي إن عودكي أنا هي عودكي يمكن صدق حبلو بيمكن أن صبتي صادري ساسو بهاشو أنا بهاش وين إن أرتي وأنا قريها وتقول أو إن حبض يرى شيء كوفل وكعود كورتان soo bandhigay waxaan doonayaa kala u sheego hablaha cream amal cream samarka qaadanaya ee winterka ba soo galay hadda creamkii night creamkii waa ka adkeysiyay night creamkii hore waayo imku waxa soo baxaya winterkii baan u galeynaa tajaacud fara badan dhaxantii oo makeupka qofka marsanay waxyaabo fara badan colorkiisa saasan oo ekeysay you have to look mar walba wala bedela creamada colorkiisa hadda waa ka adigay colorkii hore insha Allah waxaad ku daraysaa ma jirto laakiin hadda wax ku dartaa dhiiqay waxaan sheegsan it's not my responsibility marka kamaalintii habeenkan waa caynka insha Allah taala waxaan idin sheegayaa kala walaalayaal ilaahay subxaana watacaala toobkii baa soo socday kuna winterka oo kuwaasna waxay soo degayaan wiiga soo socday iyo soo degayaan insha Allah taala kuwana way gala soo xilli doontaan waxaan kale idin sheegay cuqdadan walaalayaal iska saar dad badan baa cuqdad ka buuxda please iska saar cuqdada qofkii doonaya telefoonkayga waa soo socdaa okay blokaadi intan aan eegay Afra Yasmin who is adi ana okay adi qabsa kamarada ku soo diray walaal bal maanta inuu aragna si aan u soo galno waxaan kan aniga baa imtixaan biyo soo qabashada all right no problem in kusugaya marka cuqdada la iska saaro cuqdad waa wax xanuun fara badan dad badan waxay ku abuurtaa xitaa qofka xitaa wax dalka dariiqa markuu marayo qofku wajiga si kala iska dhigayo baqayo bacaysan yahay bac ku xiran tahay oo isagoo oo dhan baad adiga baa xitaa adigaaga caadiga ah xitaa baqayaba oo qofka maxaa ka siiya qofkan maxaa ka siiya adigaaga caadiga ah xitaa ka cabsoonay qofka oranay marka qof wajigiisu 24 hours iyo cross saas loo kala qof la moodo wuxuu laga dilay maanta inaan bayga soo baxdo waxay ku tii maanta meel adigu xanaaqsan insan ku maaliga uma dhalan maxaa xanaaqaabo uma dhalan hawsha adduunka waa shaqo guri waa team waa maxay waa gaari yani everything marka ma qof walba marka saabkiisu daaqad noqdo moogta marmar waxa jira qofku iska socdo laakiin dadkii baa iska dhaadhicinaya hadda iyakii baa rafaadsan oo xanuunsanayo buka oo dadkii ka buuxdo qofkii kale caadiga ah barabeen talaalaan ay ku mudaan suntoodii oo ku qoslo waxaan ku wari maxaa tiri wal maaniga oo walaasha kula socotaa ma salaamay adiga maqnaay halka laga yeeray macdan mise ku walaasheed oo meel ku oo maqlaay ku salaantay ma sheegin magacooda sheegay lagu iskaran doono insha Allah taala isku xafad doonay cuqdad waa dad waxa jira xitaa adigu ay wada socotaan way maqaynba anadar adduun kale ba joogaanba okay wuxuu najin laay maanta soo qabashada ma rabaan barta bal hadaba ugu daasheen kasna xali baan sameeyay come on qof soo qabsada bana arka qof kale soo dhigan doonaya maanta la hadlay sadadkan oo dhigmaana right marka waxaan doonayaa in qof gurad blogger saado la darsan ku blogger thank you marka cuqdadan iska saarno cuqda nafsiya insha Allah taala awaamil aad tu'addi door cuqda wana ka sheegna wax baqashada keenta cuqdada baqashada fara badan ee caruurta marka guriga yani ama loo kala eexanayo ama qof xataa dadka xitaa shaqada dad baa jira xitaa cuqdad qaba waayo qofkii waxba aqoon baa isaga laga dhigaya wax oo la soo saaraya ama friendga la keenaya because kan kale isaga wax keenay isaga ba xitaa cuqdad ku soo kala marka wuxuu doonayaa group ka hayso cuqdad ka wada geliyo marka waa cuqdad ka waanto insha Allah bidna kareem ilaahayna waxaan ka rajeynayaa in maxay tahay inuu ka bixi doono cuqdada oo dad badan oo ka bixi doono
negative ka noqon doono all of us we're gonna be positive insha Allah bidni karim waxaan ka sheekeynayaa kale wajiga markaa wajigiinu dhibaatooyinka qabaan hablo inanba waxay ku taxalato finan bay finanka waxay kasoo yaacaan qof chemicalka isticmaalo as long as you using chemical you're gonna get a lot of spots I'll be honest with you dhaxanta baana soo dhacaysa heat baa la isticmaalaya so you have to yani iska ilaali inaad isticmaashid dhiiqo iyo waxaan magacada u bixiseen la garanayn iyo you have to look after that marka cuqdadu waa taas insha Allah taala waxyaabaha kale cuqdada keena waxa baqdiga fara badan qofka marka la saaro pressure fara badan too much pressure marka maanta anigu amaan do this do that waxa sabay aan kuna anigu qof baan human person baan kaliya baan I can't do all this wayna wax kuna ku takhasusa ma noqon karo maanta inaan kan sameeyo ma sameyn karo waxaan only one person marka insha Allah taala 45 minutes baan ku talagalay barnaamijkan intaan kusoo gabagabeynaa aad baa idin jecel inta bini aadam jecelaado iska ilaaliya mar walba ay noqotaan dad ka baxsan cuqdada dad isku kalsooni qabta buuxda naftooda u buuxda cuqdad ka baxa cuqdad kuma noolan karo ogeysiis waxaan kale ogeysiina waa inantii reer Hargeysa joogtay magaalada Hargeysa inankeeda tahriibta looga xiray ee Liibiya lagu haystay ma gafahayso walaal billahi calaykum waniga Facebook idin soo dhigay barnaamijkii ugu dambeeyay u gurmada walaalayaal hablaha Soomaaliyeed aan jeclahay ee walaalada aan adduunka ugu jeclay billahi calaykum u gurmada walaalayaal inanta inaad caawisaan oo magafaha inaku haddana is wada caawino $1 yani we can make sense arrin kale idin sheegaya kale oo iyadana Facebook aan soo geliyay maalintii iida habla ii soo sheegan habla Facebook hadda igula jira ina waxa jirta habla waxa ku jira ku dhibaataysnaa Nairobi oo dhibaato ku dhacday oo akoon lagu furtay kale inantaa in badan baa lacag lagu urursaday markii lacagtii la jeclaaday la aamusay anigu anigi barnaamijka sameeyay anigu waxaan codkay waa very powerful waan gaarsiyaa meel xaqiiqadu runta fiican habluuna igula jiraan Facebook-gayga shalay baa la soo wacay waxa lagu yiri amaale barnaamijkaagi Facebook iyo YouTube ka saar banku maxaa uga saaray maxaa dhacay waxa lagu yiri lacagtii inta waa la siinaya inta hablee la kufsaday weeyaan ee magaalada Nairobi joogay inankii la soo hadlay waxa ku dhigay walaalo kama saaraya baan ku ilaa indhaha ku arko in lacagta la siiyo kulli qofka lacagta qaatay ama lacagta ururinaya ama akoonka furtayna hadduu ilaahay ka baqo ilaahay baa jira marka aniga waxa la soo diray rasiido fara badan oo xawaalado fara badan ku yaalaan adduunka daafiisa marka lacagtu 10,000 way ka badan tahay be honest with you aad bay uga badan tahay laakiin maalinta lacagta la wareejino waxa lagu lacagta waa lagu soo diray amaalay akoonka maxay tahay inanka ugu lacagta laba cisho ka bacdi baan wareejinaa adna WhatsApp ka lagu diray video clip hadda haddii xitaa ajirada lacagta la wareejiyo waxaan hayaa inta lacagta ku soo dhacday akoonkaas hablihii lacagta diray Mareykan Canada Sweden meel walba adduunka joogeen Nairobi dhexdeeda ganacsato xitaa laftooda way soo wada bandhigeen marka waxaan leeyahay qof walba ilaahay ka baqaya oo bini aadam wuxuu urinay iska xaq bini aadamka iska ilaaliyo ajradina YouTube gasho kama saarayo Facebook-ana kama saarayo hablaha xaqoodi in la siiyo magacoodi sawirkoodi lagu adeegsaday kama saarayo marka waxaan idin sheegayaa qof walba dhibaataysan ama xaq bini aadamka cunana ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalin buu isla tusaya cadaabta marka hablaha lacagta lagu urursaday akoonka loo furay oo YouTube-ka Facebook-ka ku jirtaba kama saaray ilaa lacagtii inta la siiyo oo loo tiriyo waa inantu lafteeda afkayga telefoon isku dadku tamaal wax ma helin ilaa yoomna hada marka maxaa shilinkii soo dhacay loo geeyaa fiican ma waxba isgaari qofka kaba dheer muxuu gaari marka Yaasmiin habla fara badan oo soo gudbiyay arinta ay kaltoon iyo Faadumo aad baan ugu mahad celinayay inamadii xitaa soo gudbiyay lacagtii hadii la 10,000 baa la yiraahdo 10,000 way ka badan tahay runtana waan soo bandhigi doonaa Facebook anigu ilaahay baana ka baqaya subxaanahu wa ta'ala bini aadam ilaahay abuurto ku neefsada oo dadka xaqiisa cun inaan ka baqo habeen xalay tagay intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka maanta insha Allah ta'ala lacagtaan way la socodsiinaya hadii la soo dirin baa laakiin anigu waxaan hayaa rasiido fara badan oo wallahi oo billahi oo tallahi aan banaanka soo dhigaya hadda inanta lacagteeda la siin qof nool oo xay oo lacag lagu urursanayo iyadiiba nool oo dhibaataysan oo akoon lagu furanayo qofka ku furanay akoon oo jabhad la noqonayo hadhow حرام شيء فل ويقف كان أرساقد إلهي كوسين أرساقد والك إلهي كوسو دبها كعون أرساقد إلهي قف سياسي أو جارسي وواحد يقوم وقف هداري ما ترى قف أمالي وحبال الوسو مري وقف كاس قف كوجوان وقف كسيدي سياسية صار قامة كلمة بالهي بان وحيد مركب قبلها أنا أكون كبدن 10,000 يعني واحد شوقين كانوا 10 days بان شوق لندن ما أنت ليش يقول طبق ويك بطنه إمي كانت طبعا one week طبعا عشان يجري يعني المرض لعبته وسعتان أكون كان هلا تشوفي لعبته إلا أنت لعبته لصينية قفك لعبته أورورينا بالله عليكم يا أخواني في الله قف منك وحي أورورينا لعبتها كعنون حتى برسنتك وقاضنين أما أشياء ولا لو حبان كورنا أنكم حق مكوي والله هو حرام إن بنوري لعب لو قفان أوري ولا كما قاضن وان بني
never ever in my life آخر ولا سوي الدنيا وأنا ودي جوان وكودي جرا فيسبوك أمال وحقات عرهي لا بدي بدي نقولين never they can't say that marka wax fiican qofku wax ilaahay kugu soo diray wana siisa ku siisaa marka ka saar baa leeyahay ajrad waliba dadka ii soo sheegay waa aniga aan xayba maba aaminsanayba ka saar baa leeyahay kama saarayaan ku never ina ka saaro forever illa qofka gacanta laga saar lacagtiisii qofka dulman baynan u hadlo oo u soo bandhiga dhibaatadiisa waa iga muqaddas aniga wallahi oo billahi oo talaamaga ilaahay saddexane kii ka xanaaqay kii kubanay ana maal xaraanka jecel cunaana dawliga waxa cun laakiin waa lagu soo walba kashibi sawirka xitaa inantaa soo bandhigtay ku furtay akoonka lamarkeeda sawirkeedan haya sawirkeeda xitaa waan haya wallahi oo billahi anigu kor ma ban garanaynba markuu inanku ii sheego waa inantaasan kuri miyaa maxay ka saa subhanallah waa dhacdaa u xalba marka walaalayaal please xaqa bini aadamka iska ilaaliya haddii aad u urursan hablaha dhibaataysan ee fooshuxmadu ku dhacday ee kufsiga la gaarsiiyey ee Nairobi ku dhibaataysan lacagta la siiyo lacagta ha la siiyo 10,000 iyo 20,000 baa ka badanta lacag qofkii ka qaato qof binina ilaa yawm alqiyaama u duceeya habaar u jeeda inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala arsaaqadiisa ka arko ibn karim halo sababtaas waxyaabo ka xanaaqa markuu qofeedo qof baan caawinaya waxbaan u ururnay uu isagu isku guro wixii uu qariyo ilaa maalintii la soo sheegay barnaamijkaas ee channel 4 laga soo daayay ilaa yawm inta how many weeks ama months ka soo wareegay isa lot hablahayga aniga asxaabtada waa badan meel kasta way joogaan ilaahay barakeeyo inta magacay ku bixisay lacagtaana ilaahay meel fiican idinka saaro laakiin lacagtii lama gaarsiina aan ogna wajigeeda labaad wajiga hore waa la ururinaya baa la haayay ilaa intaas is jiitan qofka hadduu 10 geni ku soo diro walaa 10 baan ku keenay dhac ku tuur 20 ku tuur laakiin waxbaan ururinaya ururiyo qofkiina intuu ku waxba ma isiin حرام عليكم يا اخواني في الله حرام عليكم حرام عليكم يا اخواني في الله انت اصلا كسو غبغبينا يا الهي حقا ان شاء الله عقدد dadka qaban iska saara عقدد iska saara عقدد rabbaaniga waana la yasaa waana la gubaa waana la maxay ka baxa ilaahay kuma yasin ilaahay kuma gubin ilaahay kuma kaamu dhigan curiyaan ilaahay tala saar ilaahayna isku xil subhanahu wa ta'ala noqo qof isagu naftiisa iyo qiyaamkiisa iyo shakhsiyadiisana aaminsan لكن عقدة رباني ضدك بدن إن بدن سكوا أبوران هلا قبحوا أنت سكوا قبل آد بنقوم هذه اللي أصحاب تقدر لما أنت فيسبوك آد بوسلامي كرتوني صفينا حلا جزاكم الله ألف خير أنا بنقول حلا جزاكم ألف خير ما أنت ما فرح سنة أعرف الباب هذا سلا أيو أنا بتقولي ما نوع عنه وناكسن سي شير قراي ميلك سنة قلي عجلة بالله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله الدنيا يومين كلامك صح الدنيا يومين والله الدنيا يومين لكن قفك فهم الدنيا يومين يا ويلك من رب العالمين كل إنسان يعرف رب العالمين يا ليلى وما يخاف من رب العالمين والله حيروح فيها بإذن الكريم لأن قفك يعني قف لو وسودي الأمانة أمانة يقول بادي فحمل إنسان إن الإنسان كان جهولا تاكو أمانة تاكو قاتل هذا بدي سلام السلام عليكم تصبحون على ألف خير باي باي